waxa arkaysaa hawsha iyaga isku sii badinaya ilmihii caani waxa lagu siinaya fadhiga uu ku daadinaa caanihi ilmihii fadhiga iga daadiyay waxaan ku rooti ala siinaya fadhiga la farsana ilmihii rootiga fadhiga iga daadiyay waa wasaqo weey fadhigan waa fadhi mara ah weeyaan ani waligeey fadhi igama heer igama yeelan khas والله واك انت إلهي وحبا عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو عصبي ولا شي رومي كيتشن وإن الله البيت بيتكم والبنت بيتكم لما انتي ميلو الباجوك تاني سيول بقى دعوانا سان كسر هذا شانالك وحقنا الله يا قاع مفرن إن يسا في كسر هذا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا أفضل صلاة والسلام وحقنا الله شانالك جنال كيني وقبدي واي لايكت نوصار لايكت آذي وقلتها فيديو يا شينا لايكت دا نوصارتان فيديو وين ضد بدنا أركايا أم بناكو أسي بحايا بوبليغو نقونا مركا لايكت نوصارا لايكت نقود دا إنا نوصارتان فيديو وحا أكسا شامكو نوقف أي فرسدين صدح بقولو كلي لايكت سارين حق إلهي ماهن مركو راليالو لايكت سكار واوا فرسدين أو فرسشدو واوا فرسدين لايكت نوقود بإذن الله الكريم داوشد فيديو ياشين أنك ما شاء الله تبارك الله واي دادك ugu badan fiidiyowga way dhameystirtaan taasna waa farxad ba ii tahay aniga laana gudahan ka arkaya laakiin leegta ayaan ka lidanaa leegtana يا لايك نوصار بإذن الله نونا سي شرقرية هذا يقول عصبته هنا سبسكرايب كي صار بإذن الله الكريم أنت مركان كي معضو رمضان كان نوزل وشعبان كي مرينا أنت صومت الله كأقبله أنت أفرن وحين الله هاي أنت دين هاي نيسي معاناتو رمضان سودو هلا سي حرحرو هلا سي ديار جروو علوشو هلا سي برو رمضان كعلوش هلا سي برو ولا ليالو horta hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha joogo ama wadanka ha joogeen anu had inta arkaa inta qurbaha joogta ayaa arkaya Ramadaanka iyo Ramadaan la'aanba horta istiyaarinta Ramadaanka lagu leeyahay qofka bini'aadamka istiyaari watan hore inuu sheegay inuu soo celinayo cibaadadiyan isku diyaarinayna marka hooyooyinka qurbaha joogo horta aad ay u dhiban yihiin dhibaatooyinka ugu badan oo haystaan waxa waaye jadwaladii oo ka qaldan hooyooyinka ugu badan oo isoo weydiinaya jadwalkii anaga qaldan ay ku leeyihiin jadwalkii anaga qaldan horta jadwalku wuxuu kaaga qaldamaya waxa waaye hooyooyinka Soomaaliyeed hooyooyin waxaan nahay caruurta ay ugu badan tahay horta koow caruurti maadaama ay badan tahay anaga ma isticmaalno wax la qoro ama maaragtay inaan gurigay aan u sameysano ummadaha kale warqaday qortaan buugay qortaan boorar waaweyn guriga u yaala boorarkaas ku qortaan reeqalada guriga ama sharciyada guriga ayaa qortaan anaga Soomaaliya hadaan hooyadii 5 caruur haysata hadda guriga ugu yar Soomaalida 5 sano ka hor guriga ugu yar 3 caruur 4 caruur joogi jirtay haddana waxa jooga 6 7 caruur joogto gabadha markii waxay rabtaa 5 sano ka hor sidii u noolayd inay hadda u noolaato maxaa iga qaldan anisaan ma ahaan jirin aniga waan daalanahay aan wax ma qabsan karo anisaana ahay taayaraan ahay maxaa igu dhacay ee leedahay marka waa isbedeshay walaashay waxa isku bedeshay caruurtii aan ugu badatay caruurta haday barto moor caruurta ee bataan moor ee hawsha iyo shidada guriga ee nagu badanayso marka maxaa taas kaga amaan heli karnaa ama aan taas horta hooyo walba daalantahay been inima sheegayo hooyo aan daalin maanta hadii hooyo ku tiraahdo caruur badan haysato oo qurbo joogta ma daalin been ay ku sheegtay laakiin daalka ayaa laba kala nooc kala ah daalka ayaa laba nooc kala ah daal waa daal aad u dul qaadan kartid oo qof walba oo bini'aadan ama wadanka joogo ama qurbaha jooga daalan oo hawshii iyo gurigii iyo kalmaareyntiisii iyo qof waxa jira hawsh guriga lala kala maareeyo iyo qof waxa jira aan lala kala maareynaa jirto qofka lala kala maareeyo isaga caawinaadu hela laakiin se qofka aan lala kala maareyn jadwalna aan samaysan hawsha guriyahan qurbaha waa lagu dhimanayaa hawl aan dhamaanin weeyaan shaqo aan dhamaanin hadda fadhiga hagaajinaysa aniga su'aalaha ugu badan ay soo weydiinaysan waxa waaye run gurigaaga muxuu isku dhaxyacsanaa way aniga gurigayga wax isku dhaxyacsanaanaynin ma ina dhahay isku ma dhaxyacsana oo isku dhaxyacsan yahay mararka qaarkood waxa isleedahay gurigan 20 maalmood lama hagaajina isleedahay laakiin se oo bini'aadan tahay bini'aadanku mar walba ma dhameystirna qofkii ku yiraahdo maanta anigu waa dhameystirnaa oo wax iga kala daadsan ma jirto beenu ku sheegay laakiin aniga waxaan ku fiicanahay waxa waaye waxaan leeyahay qaabka aan u shaqeysanahay ayaan fahansanahay stress isku marido maskaxda iska ma waalo kan qabo jikadii hagaaji cuntadii kaliya qolkii gal soo hagaaji ki ilmaha soo hagaaji dharkii dhaq bustihii bedel maxaan ku rakana iga wasaqa roogiya maanta dhaqa daaqada maanta dhaqa kana dhaqa no ani waxaas dhan ma sameeyo ani waxa sameeyo waxa inaan waxayga jadwal ahaan u qabsado maalinta aan sariiraha bedelayo go'yaasha waa ii maalin gooniya maalin aan fadhiga tartirayo aan fadhiga dhaqayo waa ii maalin gooniya maalinta aan
يعني waxaan kab meel taal iyo sharabaad meel lagu tuuro iyo wax yar meel iska yaal iyo ay guriga iska leh waxyaalahaas ay guriga iska leh waa iska qaqabanaysaa meel iska dhigaysaa laakiin haddii aad nidaam leedahay oo caruurtaada ay jadwal ku leeyihiin oo aad og tahay sharabaadada caruurtaada meel in aad ugu hagaagtin ay ku yaalaan nigisaanta caruurtaada meel ay ugu hagaagto ku yaalaan dharka caruurta ee ku kala rasaysan yihiin ama ku kala organisan yihiin stress kuma helay adiga baatiyaashaada sidoo kale fadhigan iyo waxyaalahan maalin waxa iska qabsan kartaa midda kale waxa waaye muhiimaddu waxa waaye inaad jadwal samaysatid inaad gurigaaga jadwal samaysatid gabadho badan oo jadwal samaystay way jiraan oo dhahay ruun jadwal aan samaysanay shaqadu waa naga kala yaraatay sidii hore ma nihin laakiin state waxa arkaysa marka banaanka u baxayd hooyooyinku waa wada daalan yihiin kulli waa wada daciif kulli waa wada luudayaan kulli wajigooda wax farxad ka muuqata ma leh hooyo farxad ka muuqata oo ka soo horbaxaysa ma leh hooyo walba yacni waxa ka muuqda muruga ka muuqata murugta marka maxaa keenaya horta waxa keenaya hooyooyinkeena Soomaaliyeed ee qurbaha jooga isku maroonin kow nafteena uma roonin okay caruurtii laga daba cararayaa guriga maanta dhan laga shaqeynayaa waxa laga yaabaa waqtigeena ugu badan inaad guriga gelisaan bal waqtiga ugu badan commentiga iyo soo qoray gabdhaha qurbaha jooga waqtiga ugu badan waxaad gelisaan commenti waxaad gelisaan maxaan ku rahdaa guriga gelisaan shaqadiisa waqtigiina labaadna waxaad gelisaan social media gelisaan ama daawada ka ahow ama fiirsasho ka ahow fiirsada ka ahow ama fadhiyo ka ahow social media gelisaan hooyooyinka Soomaaliyeed inta shaqeysa way shaqeysaa oo fiirsada hooyooyinkan cadaanka ayagoo shaqeynaya oo caruur haysta ay haddana dhisan yihiin ma daalana waxa laga yaabaa hooyada inta soo caruur inay hayso shaqo full time inay ka shaqeynayso gabadha cadaanka ah gurigina way ka shaqeysanaysaa wallahi gurigeeda hadaa gashin si uu kala organisan yahay yaabaysa laana cunug walba waxay bartay nidaamkii guriga bartay cunug walba waxay leedahay sariirtiisa ku ka kaco haye sariirtaada gugula la iskuma qaylinayo anaga waa isdhex yaacina maanta dhan waryaa soo qabo war ma cadayatay waryaa haye sharbaadadaada aaway kan ay dhibay kabtaadi xiro kareen ma marsatay timaha shalayso hooyadii stresskay ku kacdo subaxii habeenkii iyadoo saa u kala jeedo ayay seexanaysaa marka maxaa loo baahan yahay ilmaha horta kow ina ilmaha nidaam iska barno ilmuhu inuu teemkiisa uu yaqaano saacad ina u qabatid saacadan waqtiga aad kicisa la jooga waqtiga cadanaysa la jooga ilmaha inuu isdiro laba maalmood adiga markaa dirto oo u sheeg maalin saddexaadkii inuu ilmaha isagu isdiri karo fiiriya tirada kale qaylada badan iska deeyno hooyooyinka Soomaaliyeed stresska naga muuqda murugta naga muuqata farxad la'aanta naga muuqata war labaad shada maanta suuqa aadid 10 gabdhood Soomaali hadda aragtid hal qof oo farxad ka muuqata ma leh wala wada murugaysan yahay isku fiirsada ininka xataa isku fiirsada qof farxad ka muuqata ma leh qof walba waxa moodaa inuu aysirka ka dhacsan yahay ama fitamiiniska dhan inuu ka dhacsan yahay moodaa anagu dhan waxaan moodaa in tacsiin oo wada taalaan la moodaa yacni guys sida isku dhaano yaa aan ka kacno hurdada aan ka kacno maxaan ku rahdaa xajiska iska qaadno vitamins qaata jirkiina vitamins u baahan caruurtii fitamiinka waa ku guraysaa fitamiinada caruurtu waa siinaysaa maanta haddii aad tiraahdo ilmaha saa ayaga 150 fitamiina arkaysaa oo maaragtay lagu soo kala diraya lagu siinaya maasha Allah tabaarakallah waxun ma aha inaa caruurtiina ogaano laakiin caruurta adi nafteena ka horeysa anaga nafteena ka horeysa vitamin D ga naga dhacsan aysarkiya naga dhacsan macdantiya naga dhacsan waxa naga dhacsan maxaan ku raraa fiberkiyo dhan naga dhacsan qofka bini aadamka marka waxa loo baahan yahay iska daa waxaan fiiri boqolaal fitamiin oo la soo aroorsanayo hufrid ma u baahnid fitamiinka aad tusad hadaa qaadatid vitamin D gaagan aad qaadatid vitamin ka maqan ma jirto hadii aad qaadatid inta labadaas vitamin hadaa qaadatid wax kale oo ka maqan ma jirto uma baahnid wax kale oo baan ama multivitamin dhameystiran hadaa qaadatid wax ka maqan ma jirto kareenkaaga yarka iska marso maxaan ku rahdaa kareen waxa jira dhayaaneed loogu talagalay jira iska marso maxaan ku rahdaa wax yar oo maaragtay maskaxdaada deji hawshan guriga aan dhamaanayn oo maanta intaad gashid ilaa ay caawa aa ku jiraysidna rabadaankii hadda nagu soo dhow hawshii way sii badanaysaa ilaa inuu maalintii caruurtina u shaqeystaa la rabaa habeenkiin dadkii waaweyn inay afar u karisa u shaqeysaa laga yaabaa waxa laga yaabaa naftaada inaad waqti u helin aad meel ku aadid gym ku aadid aad maarta xataa 30 daqiiqo soo socod cuntooyinka caafimaadka leh sida cagaarka oo kalena
hooyooyinkeena Soomaaliyeed ma iskugu roona totally cunto iskuguma roonin vitamins iskuguma roonin labis ma iskugu roonin jirkeena inaan daryeelno iskuguma roonin why maxaa marka yani ya bal adi isxisaabi yani hooyo Soomaaliyeed waxay libisanaysaa ama nafteeda ay daryeelaysaa maalinta aan aroos tagayno maxaa aroos naga gala anaga أنا أروح إحنا قال مجرتو ورجورجان هاوشيسا السيستم ولا علي معانتوي وحاس ما أنت ميل أفرست أفكر معانتو إحنا هجاجينيا ويجن وحنا هجاجينيا ميل هبلايو ويجن وحنا هجاجينيا محاكور هذا ميل هبلايو ويجن كل وحنا هجاجينيا ميل هبلايو جكر هذا وحق بشي هالمر إسكسو هجاجي لوك إسكسو لك محاكور تلاجة ده صدح لي بلون هالمر لوك صوت لك سو هجاجي بشي هالمر قاعد تصومري فدي قصيدو كهذا فدي مرأة كويالو waxaan dhaqaa aniga labadii bilood hal mar aan dhaqaa li'annahu waan daryeela gabdhaha qaar waxay soo weydiiyaan ruunay fadhiga maxaa ku dhaqdaa waxa ku dhaqdan ila soo wadaag aniga waxaan ku dhaqaa waa in la soo wadaaga aan mar qalaa iskaga dhaqdaa mar saabuunta weelka lagu dhaqaa iskaga dhaqdaa li'annahu waan daryeela ilmaha tarbiyadaan bara waxaan ku raadaa waxba ku cunina mar waa guriga meesha ugu yar beebiyada ah tababarkay ku jirtaa ha taabanin ha yeelni ku jirtaa meesha 3 jir waaye ma sha Allah mar waa 3 jir waaye markii wax soo qaadato kursiga qaadaya la tagtaa laakiin hooyooyin waxa arkaysaa hawshi iyaga isku sii badinaya ilmihii caani waxa lagu siinayaa fadhiga uu ku daadinaa caanihi ilmihii fadhiga iga daadiyay waxaan ku rooti ala siinaa fadhiga la farsana ilmihii rootiga fadhiga iga daadiyay waa wasaqo weey fadhigan waa fadhi mara ah weeyaan ani waligeey fadhi igama heer igama yeelan khas والله واك انت إلهي وحبا مسكحة نيدها اسكو دسننا عرورة اي جوجت اي عرورتا كداسي عرور مال علين كرا اي عرورتا فصح على سي عرورتا فصح ولا سينيا غرغودا way ku ciyaarayaan laakiin dishibliinka iyo tarbiyada iyo nadaafadu ilmaha inay bartaan iyaga ay dan ugu jirtaa adigana hoosha ka yaraanaysa laano adiga robot ma tiid ma faanti anaga robot ma nahay robot ma nihin marka hooyada Soomaaliyeed qurbaha joogta tood yani gabdhaha Soomaaliya joog waxba inka hay oranin runay gabdhaha qurbaha joogaya la soo talisaa taladu gabdhaha qurbaha joog waxa ula talinaya waxa waaye waan daalanahay hawshiya nagu badan waa stress gareysay dadku qof walba uu ordaya qof naftiisa ka fikiraya male walaalayaal shaqaala inii jooga ehelba inii jooga oo maxaan ku raahdaa maanta hadii wax yar ku gaaraan waa lagu soo yaaca waa lagu soo orda gabdhaha qurbaha joog waa gabdho waxa waaye maxaan ku raahdaa cidna uma maqana ceelna nooma qodno waaye marka biliis rabadaan waa soo dhawiye isku diyaari rabadaankaaga gurigaaga iska sii nadiifso maanta laga bilaabo hadaada jadwal hayna guriga jadwal u sameeyso jadwalku wuxuu ka caawinayaa istiraatiijiyada aad u nooshahay jadwalku wuxuu ka caawinayaa wuxuu ku fududeynayaa in ilmaha si fudud aad u korsatid jadwalku wuxuu ka caawinayaa stresska in uu ka yaraado jadwalku wuxuu ka caawinayaa in aad daalin ama daalka uu ka noqdo uu ka yaraado caruur badan ma sha Allah waa haysanaa maxaan ku raahdaa guriga ugu yaraan maanta 5 ama 6 joogta ilaahay noo barakeeyo ama 4 joogta hadda marka hadii hooyadii halka u joogay iyo hooyadii 6 u joogtay ay tiraahdo waan daalana hooyadii 10 u joogtan maxaa dhahnaa marka iyadana war sidaas isku dhaano aad wayni salaamaya naftaada wax yani wax naftaada kaaga horeeyay ma jirto naftaada number 1 ka dhig gabaray naftaada number 1 ka dhig is ogow naftaada ogow daryeel naftaada ka bacdi ilmaha waa daryeeli kartaa okay inta soo gabagabeynaya fiidiyoga walaashi roomik leh shacbaan ila qeyrsan waafajiyo وقتي شعبانك وبالآد أدو بركة بدن وبالخير بدن وبالصونك إلا بضية فيعن لسك صوم حبيبك عليه الصلاة والسلام بشانو كلا حوق ويسوم مجري كلا قيب سيجا شيء تمنك بشر بدن ومالت أعماش إلهي لو بندقايو ومال الآد وين واي وقف والباب أعماشيسي لو بندقاي إلهي سبحانه وتعالى وحس ماركتي أتكون حجرتي مارك إلهي كوب قدام بدافع نقديقو إلهي كوب نحرستها نقديقو إلهي كوب ماركتي دنبي قوضة دافع وحسنات كوضا بدي إلهي أنا قديقو قاتو مدينة كرا الله وقتمو أولاد الله أنا لكوريو محاكورة هذا جنة في الدنيا في النمعة وآخر في الجنة بإذن الله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله باي باي مروة باي باي ده يا أصحاب ذات داغني باي